بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ترسيا وقت وحكم الله من آيات السجاشن أفراد من سورة البقرة، وعن قصر حسني بني إسرائيل هي قصة كودي كسب سنة لقن حمدي أيقوك عشرين الله كلك عشرين سبحانه وتعالى يرسوشي سيكتبتس وحمرك رب سبحانه وتعالى وكله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وحي شيكتان ربني إسرائيل inay yihiin dad ilaahay doortay subxaanahu wa tacaala. waxaanu nahay ilmihii ilaahay iyo kuwuu jeclaa baanu nahay dheh. waxay yidhahdeen jannada geli maayo waxaan yahuud ahayn ama nasaaro ahayn sidana maan doonto, jannada annagunbaa iskala bay dheh. shubhadaasaa marka la burinayaayo arrinkaasi wax jira inuusan ahayn ayaa la caddaynaya. وعور بكل سبحانه وتعالى قل حتى هذا النبي إن كانت هذي أهاتي ربني إسرائيل لكم إذنك هذي إذين أهات الدار دارتي الآخرة إيدا بيسي هذي إذنك إذين أهاتي عند الله إله أكتيسة خالصة مت صافئة مت برحلة والله إذن لو ذاك هذي أيتاي من دون الناس دتك سكدو دتك انتي سكل سكديس حدا يمد إذنك إذن قوني أتاي فتمنوا شعلادا شعليست الموت غيري شعليست إن كنتم هداتين صادقين كورن شيري حدا دارت آخر أي إذنك إذن قونيت ونحريست هذا يتشند هذا كيليجين الليلين وصاد شيئتين oon laydin la wadaagaynin oo dadka aad ka xigtaan hadda ninkii sidaasoo kale ah geeri uu jeclaada. geeri jeclaada oo ruuxu mar hadduu og yahay inuu ilaahay agtiisa khayr ku leeyahay oo janno iyo naxariis ku leeyahay adduunyadan iyo dhibkeeda iyo kadeedkeeda inuu dhaafo jecel yahay oo see ku dhaafaya dee waa inuu dhinto marka geeri jeclaysta leeyahay. آية وحا لغا ودا سيدا الراجحة يعني غيرو نسكا جعلادا ما هي مسألة دي مباهلة لدي جيران هوارتنو حدي ساد شيغانيسان aad idinku aakhira kaligiin leedihiin aynu habartano oo labada kooxood idinkiyo annaga midii xaq oo midii baadil wadata ilaahay inuu halaago baabi'iyo aynu habarno. sidaas ayaa waxa ku fasiray Abdullah ibn Abbas iyo jamaaca min at-tabi'in waana sida ibn Kathir uu rajaxay inay mas'aladani tahay mubahalo aan habartano. طيب waxay la mid tahay qoladii nasaarada ahayd najraan ka yimid sidii nabigu la sameeyay suuratu al-imran noogu iman doonto faman haajaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أنا سوير نعرورت إني الدمر كني النجم عن وضنمان وحبارتنا كأن خلدان إن الله بابه سبحانه وتعالى مركا جيري تمنية صاص على جوضا سدا إنه معنه يحين وحى الرجحية كما طلنا يسروح وهدو آخره isbog yahay inuu ahlu janno yahay inuu geeri tamaninayo ka dhalanayso. maxay yeelay saxaabo badan oo ahlu janno ah muuminiintuna guud ahaan waa ahlu janno. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa imaamu ahli janno haddana maca dalika wuxuu rabay in geeri la tamaniyo. geeri in la tamaniyo ruuxu geeri jeclaysto ayuu nabigu diiday sallallahu alayhi wasallam. waxa laga yaabaa ruuxu inuu u diidayo geerida cindigiisu markuu si dheeraadaba amal buu si kororsanay. marka saas darada nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam yani kaydin kufi an khayrukum man tala amalu amma tala umruhu wa hasuna amaluhu nabi sallallahu alayhi wasallam
idinku khayr badan waa ruuxa cimrigiisuna dheeraada camalkiisuna fiicnaada marka inaad janno gelayso hubtana inaad janno gelayso kama dhalanayso inaad geeri jeclaato marka takale iyaga laftoodaaba inuu xujaysan lahaaba oo inugu dabarogi lahaa oo waxay dhilaan idinku janno inaad gelaysaan moogti ha ilaahay waa ballan qaaday mu'miniintu inay janno galeen hadda idinkuba janno inaad lidin baad sheeganaysaan ma geeri jeclaataan soo xujada mayna inugu dabarogin saas samayn lahay marka sida saxdii waxa weeye in la yidhaahdo kaalaya aan ishabaarnay haddaad yani waxa weeyaan aad saad sheeganaysaan wax ka jiraan oo runtiin tahay aynu habaartanno labadeena ka qaldan inuu ilaahay baabiyo subxaanahu wa tacaala middaa way midda marka lagu kari waayo laana waxay soo yihiin waxaadu inuu yahay iska sheegasho qul waxa tirada nabigu in kaanat haday ahaatay lakum idinka haday idin ahaatay ad-daaru al-aakhiratu daarta dambe عند الله إلهي أكتس خالصة مد قونئة مد صافئة وإذين برحلة من دون الناس دتك سكضوضة دتك انتي سكالة إذين كقوني وصافي إذين كأهو إذين كخاص إذين كأه هديتاي فتمنوا ساتشغنسان فتمنوا تعليسا الموت قيريش عليس أو كالي هبارتني لو هذا إنك كي خلدن إلهي إنو هلاغو كالي أينو سهبارني إن كنتم أداتين صادقين وكورو شيئا إن أتشنى إذن كل يديهن يعني شعب الله المختار أبناء الله وأحباؤه إن أداتهم كل شيئا سنك عليهم ولن يتمنوه رب سبحانه وتعالى ولن يتمنوه قيريدة شعلان ويان أبدا ولقود بين كل هبات منون وأينا يعني هبارين وأينا معناه وحوي قيريد شعلاني صوت محيث بما قدمت وحي هرمر ستيدراد أيديهم كعمهوت والله ألنا عليم كي أقوى بالظالمين الظالمين تقالوا بيه سبحانه وتعالى ولقد إني قيريد شعلان رجل الله كما قوى sababta inay geeri u jeclaysaneenina waa waxay hormar sadeenoo dunuubta galeen bay ogi gacmaha laga cabiri laakiin jirko dhan baa laga wada khaladkay galeen iyo dambiyaday galeen ee aakhiro uga horeeyay ogi saas daradeed haday adduunkan badhaafaan ciqaab ilaahi iyo cadaabkiisa inay galayaan bay ogyihiin saas daradeed geeri kumana degdegayaan mana habaartamayaan mana jeclaysanayaan way macna Allah subhanahu wa ta'ala uu ogyahay dhaalimiinta يعني وأوجه يوم كم يدين معه ولن يتمنوه ما أي تمنين ينجريدي أبدا ولجوت بما قدمت بما بالذي كيدرتي قدمت أي هرمر أيديهم كعمه أي هرمريين يعني وحي يجو أي هري السمايين والذنوب الدرادت بين أتشعلانين إن جيري ودانو جيري ده أيسن أتشعلانين والله ألنا عليم كوي أقوي بالظالمين الظالمين تألا وأوجه سبحانه وتعالى طيب إلهي أكتسان اللي جت عليه وتشنق أنك إسكاله منا هبارتما إنه مو قلنا إن إنه هبارتنا طبعا عليه ده وحوي وركو دي بين تودي بصوبة تدي وحي وقادين وركي أي شيء جن إنه سمح بكتيرين ولا تجدنهم سيقولون في عليهم بالغ على ورك إن الجيريش على ذا نسكبر لافه إلهي أنتوا أبو ربي يقولون في عليهم ولا تجدنهم وارهلي أو وارهلي يهودا أحرص الناس إن يهين بعد كهل يذهلي ضدك كو وجد البدن على حياة النور كركت ومن الذين كوين وأجدد البدنه نرشة أشركوا إلهي وحلو ذاتي كو مشركين حتى نرشة وأجدد البدن يود وحوت عليها أحدهم متكوت ويهودي لو يعمر أي أن يعمروا إن لعمر السياء يتعلن لها 1000 سنة كن سنة إلى عمر سين وما هو من أهان عمر سين تاس أما وما هو إساقو موسى أهان أحد كاسي بمزحزحه مد كدر كينيو من العذاب عذاب كحقي سأكدر كينيو أن يعمر إلى عمر سين عمر سين تنمد عذاب ككفو جيني سأكدر كينيو سماها والله ألنا بصير كي أركوي بما يعملون وحي السمين ينبوغي يو أركيو يعني ردوا عليه سبحانه وتعالى وذهلي نبيه ضدك إن يكون كوا أقول نفتشعل ونرشة أقول دال بدن نرشة الدنيا أنت كود ذلك كران إني نولادان بيكود ذلك أنت كود ذلك كران إني نولادان ويكود ذلك المعنى اللهم إني حيلات بوايان وتحدر أردن كسر رمضان مويه
laakiin iyagu intay dadaali karaan waa dadaalaya dadka dhabay ugu dadaal badan yihiin xagga nolosha xataa waxay ka uga dadaal badan yihiin buri nolosha kuwa mushrikiinta ah mushrikiintani waa kuwii aakhirada aan rumaysnayn kuwii yani waxa weeye carabta ahaa ee aakhirada inay jirtaba diidanaayo ka doodsanaa oo markii la dhinto kadib intaa unbaa lagu dhammaan lahaa kuwa xataa waa ka jecel yihiin nolosha waa ka jecel yihiin waa ka nolol waa ka naf jecel yihiin saas rabbi subhanahu wa ta'ala oo kuwani mushrikiinta ah maadaama aynan qabin wax aakhiro la yidhaahdaba inay jirto aakhira maba jirtaba mar haddaysan aakhiro jirin noloshana nool yahay middan uun hadda la joogo wey hadduu ruuxu ka tago nolol ka dambaysa ma jiro kuwaasi soo ku dadaali maayaan marka inay tan unbay ilaan hayaane nolosha ay rumaysan yihiin waa untan midi kama dambaysay rumaysan yihiin maadaama ay tan tahay waa inay tan ku faracdaygaan marka ilaa wax ka dambeeya male waa mushrikiintii kuwa sidaasa waxaa nolosha kaga sii dadaal badan oo kasii daran yahuud ayagoo aakhiro rumaysan ayay haddana kuwii aakhirada aan rumaysanayn bay ka naf jecel way macnaha waxay nolosha uga dadaal badan yihiin inayba aakhiro ayagu leeyihiin warkeeda u kaad sanna inay keligood leeyihiin warkeeda iska daa xataa mushrikiintii gaalada ay aakhiro rumaysanayn waa kasii daran yihiin xagga jacaylka nafta way uga sii jecel yihiin way kasii jecel yihiin rabbi subxana wa tacala waa la sii cadeeyey waxaa la yidhi mid iyaga ka mida wuxuu jecel yahay 1000 sano in cimrigeeda la siiyo cimri 1000 sano in la siiyo laakiin haddii 1000 sano cimriga la siiyo cimri siintaasi cadaab ilaahay ka durkin mayso ka fogin mayso geeri waa tii timaada mar alla markay geeri timaadana waa kii cadaab ilaahay gala way macna saas weeyaan wala tajidannahum walhalibu rabbi subhanahu wa ta'ala la tajidanna walhalihum ahlul kitabka yahudi أحرص الناس إليهين نلقوا وجدد البدن أحرص الناس ددقوا وجدد البدن إليهين بدل على حياة النور تشهد الوجدد ومن الذين كوين وكدد البدن أشركوا شريك يلي ومن الذين ده ومن باب عطف العام على الخاص ويو ناس تيبي قالن هره كدب ندب على الشيء ومعناها الاهتمامه يعني ضدك انت سكنه waxa ugu nafcil mushrikiintiina waxa ka sii nafcil yahuuda ka nafcil ومن الذين كوينا وكان نفعليهين ويكجد البديهين نلصا أشركوا شريكي يلي كو إلهي أصنامته وحيسوق الضري اللي أدومدي عبادته ولا شيء كوانا حتى نوشه وجدد البدين يود وحو شعرها أحدهم متكود لو يعمر إلا عمر السيو 1000 سنة كن سنة إلا عمر السيو عمر كن سنة إلا السيو ومتكود شعريه وما هو أحد كاسي مأهان بمزحزحه مد وكدر كنيو من العذاب عذاب كحجي سميد وكدر كنيو أن يعمر إلا عمر السياي أي تعميره عمر السين تاسي مد أي كدر كنيو عذاب إله معها فعذاب إله مرنا كفوين مسول وما هو أحد كاسي مأهان بمزحزحه مد ودركينيو من العذاب عذاب كحجي وكدر كنيو أن يعمر أي تعميره عمر السين تو مد دركينيو سماع كفوين مسول سكة سادي عمرك الله قد يرى عذاب في كلام صافي معنا وعذاب كبحثا ما والله أعلم بصير كي أركوي بما يعملون وحي سمين يانو وحده إلهي كما قرن كرا سبحانه وتعالى سياسي معنا مركا إيه الآخران النهي وضدك إلهي بان النهي وشناء النهي إسكالي وإلهي بان نتشعل وسعبك إلهي دوطي بان النهي لما شنا مرة إيا آخراء وانو كعراري كافية كلا ديني كلا داية بنتين إلى تابع تاسي عدينيسا وإلهي أكتسى أيضا وحمق الله سبحانه وتعالى شعيل كان أدنولشي نفط تعشيهين وحكتسين إنسان آخر وحبيدين أولين هذا آخر وحيدين يالان واسكد ذلك لهيدين وآخر يجري حاجة معناه وآد لهيدين ومعناه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صافي معنا يهودا انتو إلهي أبو ربي قلنا افتعليهن أقفوا ليسين wax kasto oo naf qaaday oo macna bini aadamka nafka qaaday ayaga wax weeyaan agtooda aad u halis weey laakiin wixii sida aha oo inagii hadda yaani wax weey lagu ciyaaray wax la yaab lama waxaan u marin hadda inagu baa ka sii nafjeel oo xagga fulinimada inagu baa kaga darnay wa illa wax weeyaan ummad ma aha yaani rabbi subhanahu wa ta'ala fi surah al-hashr markuu kaga hadlayay حتى إني مواجهة يبناها في سوسودي ما يقانا
من وراء جدر دربي جداشي ولا وحكة طوران مويه نمان بناك حتى أوصل بحكرمه فلين نمدو ده معنا مركب فلين نمدو ولوجوده لكن ده الدين هيسمي مركب أركان أو معناه واحد دين يمبدأ إليه أين تروي كل يارين سيدا ما بين يستوكل معنا قل حتى هذا النبي ومن كان عدي هذا هل كان الشبهات ولا لقيت جوابي النبي قوي ما بين صلى الله عليه وسلم سؤال اللي يشوف كده حديث صحيح البخاري غير كسر الاختصاصي سؤالها النبي قوي صلى الله عليه وسلم أيها وحى كم إذا المركب وجد جوابي دون سؤالات أيها وحى ويديه وحى كويديني ملائكة منك الحرير ككليدين وكيف نفسك بله مركزول وجبريل جبريل بعد حديد الذي والسماء وحي يتيجس كوكين ها نكاسي وانك عن حلقة هم بك ملائكة نك عن حلقة كان هيبه وكا ساعة براد ما دام نك عن حلقة إن صاحب فيين كم تشوف القراء منه ميكائيل بان الله صاحبنا وميكائيل كان صاحب ميكائيل وانين خير كيراه روكو كيراه طاقو صوصاراه يعني وانين صلاح كشقي لكن من جبريل ليلان بأس بلايا بقال وحلا خريبة وحلا بكرة كوتش غيره المكان ما دام أنت العلق أهل الأرض وحلا وضعتكم عملوا كديدني كيف على جت جواب يا ما قل حاضر هذا النبي من عدي كان أهاري من كان عدي أهاري عدو لجبريل روحي عدوه فإنه جبريل نزله وسوددتشي على قلبك قدوشي سأنبو كسوددتشي وحيي بإذن الله تصديقا حاله يه كاو سوددتشي لما بين يديه كي كهري لما بين كي كهري بالرميني وهدى هنون حاله يه وبشرى بشعرين للمؤمنين مؤمنين الله بشعرين محادكم ما سيد ملك الجبريل محادكم هايستان ملك الجبريل روحي عدو وهو عداوة دادوها يساي يعني وجه ملو عداوة دادوها يساي ميد قر أما وقر ضر محايا ملك الجبريل وحكا له أسمي مجري وحيجي يفرنته إلهي كسو قاضي انظر أديك أني محمد كسو قالتي صلى الله عليه وسلم ما انت هسدن بي وقد يزان ما انت هسدن بي وحكا لحظات كل هيسان وماشر وحكا لما هيان لكن وحيجي بو الله كسو قاضي ني محمد قلبي كسو كسو دجيي انت سوح ليسكم مع جماعة واحد يعني ملك الله يقول نقول علوبنا ما انت أمور السمي هذا سائتاي وحيك وسوق هذا وكوك كان إذن إلهي أمر إله ربي بأساس سمي لسونا وأضون إله وحاول كدرا شيء وكان قلبي وكسو دجينا كي يجو هيستين بؤر مينيا كي يجو هيستين التوريدها أيو أر مينيا أو أمر خاتك عين hanuun iyo bishaaru u yahay dadka mu'miniinta maxaa marka lagu eeday muxuu eeday jibriil muxuu eeday waa gardarro cululati way macna qul waxa tirada man kana cidi hada aduwan adu li jibriil ruuxi adu fala wajha li mu'adati allaytanka ula allaytamayay wajhi male garna ma ah gardarro maxay yeelay fa innahu jibriil nazzalahu wa sawdadachi quraanka iyo wahyiga ayuu soo dajiyay ala qalbika dushiisa ku soo dajiy ma intaas dambi looga dhig marka biidnillahi ilahi idankiisa ku soo dajiy wuxuu isagu jeefkiisa kala yimid ma rabbi baa soo faray musaddiqan xaala uu yahay ka uu soo dajiyay qalbigaaga uu ku soo dajiyay musaddiqan xaala uu yahay mid rumaynaya lima bayna yadayhi isaga ki ka horeeyay oo tawreed ah ayagu kay haystaana waa umar ka kacay طيب وهدى هنون حاله يهي إيا وبشرى بشارين للمؤمنين مؤمنين تأوه بشارين يهنون يهي ذاتك إله الرميين هنون إيا بشاره يهي كي يكورين والرمين يا فرين إلهي سود بيوي ما انتا سملك الجبريل لكم أجيها ومعنى سيدا سو انتا سيدن بمعها من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين من كان عدي أهذي عدو روحي أهذي لله إله إيه وملائكتي إيه ورسولي رسوشيس إيه وجبريل إيه وميكائيل فإن الله ألا عدو إيه للكافرين قالت أبصد مركة إلهي حكم به سبحانه وتعالى إلهي الروحي عدوه ملائكتي سعدوه رسوشي سعدوه رسوشا واحد سوى ذا قلية رسوشا بشر كابن آدم كا إيه رسوشا ملائكة
allahu yasbati min almalaa'ikati rusulan wa min annaas marka malaa'igta rususha malaa'igta ka mid a iyo kuwa bini aadamku waa soo gelaya jibriil iyo mikail baa si gooniya loo magacaabo soo malaa'igta ka mid maaha wa malaa'ikatihi way soo dhex galeen way ku jiraan haddana si gooniya iyaga maxaa loogu magacaabay yani wa jibriila wa mikaala waxaa loogu magacaabay lilahmiya waa madaxdii wey waa madaxdii hawlo waaweyn bay qabtaanoo jibriilna waxyiguu keenaa mikaalna wuxuu u xil saaran yahay wixii roob iyo dhibic iyo wixii dhulka ka soo baxay u xil saaran yahay saas daraaddeed labadoodan iyo israafiil buu nabigu sal alay wasalam xusi jiray allahuma rabba jibriila wa mikaila wa israafiila faadila asamaawaati waalardi waa kii nabigu ku ducaysan jiray sal alay wasalam yani israafiilna marka la dhinto kadib dhawaaqa lagu soo noolaanayo iyo buunka afuufidiisa labada goorba isaga way xilsaaran marka malaa'igta kuwii ugu muhiimsanaa weeyaan saas daraaddeed baa loo xusay jibriil iyo mikail intaa ruuxii cadow u ah ilaahay baa cadow yahay ruuxii cadow u ah intaa waa gaal allana subxaana wa tacaala gaalada cadow buu yahay saas macna ilaahay cadow buu yahay macnaheedu waxa weeyaan yani rabbi subxaana wa tacaala awliyadiisa ama malaa'igta ka mid a ama bini aadamka ka mid a ruuxii la colloobaayey allana col buu yahay subxana wa tacala man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi buu nabi sal lay slam weli kay a ruuxii la colloobaayey dagaal baan ku iclaamiyey bu rabbi ilahi subxana wa tacala ha ku talagalay inaan la dagaalamayo saas way macana marka awliyada ilaahay leanna weliga waxaa la yidhahdaa aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun malaa'ig iyo bini aadamba waa soo gelayaan ruuxii colaad u qaadoo la colaytamo oo macnaha waxa weeye gooyo oo la dagaalamaayo ilahayna subxaana wa tacala waa la dagaalamaya colbuna ilahay leeyahay subxana wa tacala saas way macana man kaana cidii hada caduwan cadow lilahi ilahay ruuxii cadow ah wa malaa'ikatii iyo malaa'igtiisa iyo rusulihi rusushuu ilahay soo dirsaday wa jibriila iyo jibriil iyo wa mikaala mikail oo jibriilunbaa cadow noo abay dhaheene mikail waxay yidhahdeen waa saaxiibkane maxaa meeshan loogu daray waxaa loogu daray haddaad jibriil la colowdeen mikailna waa la colowdeen saas way macana maxaa yeelay hal rasuul a ruuxii beeniye rusushoo dhan waa beeniye hal malag a ruuxii beeniyena malaa'igtii o dhan waa beeniye leanna waa wax iswato wey ama duduub u wada qaado ama duduub agu wado laakiin waan qaybinayaa maya wa malaaig wa mikail iyo wa mikaala mikail ruuxii cadow u ihi fa ina allaha alla caduwun cadow buu u yahay lilkaafiriina gaalada waa gaaladana ilahay cadow buu u yahay subxana wa tacala masaladaasi marka waxay tilmaamaysaa mas'alatu lwalaa walbaraa ruuxa mu'minka ah wuxuu saaxiib la yahay oy isxigaan oo hiil iyo hoo wadaagaan oy walaala yihiin oo ay yani wax ka dhexeeyaani waa ruuxa ay isku mabda'a yihiin ciday isku mabda'a yihiin ama malaa'ig ha noqoto bini aadam ha noqdo jin ha noqdo inta aada isku mabda'a tihiin baad walaalatihin inta aada caqiidada iyo mabda'a isku khilaaftaanna isku mabda'a ma tihdin walow aad wada dhashaba walaala ma tihin waxbana idinkama dhexeeyo nasab ha idinka dhexeeyo wadan ha idinka dhexeeyo masaalix ha idinka dhexayso dawladii ha idinka dhexayso waxa kaloo idinka dhexeeyo dhan wax ka soo qaad ma lehe mabda iyo caqiido iyo iimaan intaad wadaagtaan baad walaalatihin ruuxaad halkaa ku kala tagtaanna waxba isuma tiidin saas way macnaha walaqad anzalna ilayka aayatin bayinatin wama yakfuru biha ila alfasiquun walaqad anzalna xaqiiqa waan soo dejinay buu rabbilahi subxana wa tacaala ilayka adiga xaggaagaan kuu soo dejinay nebigow aayaatin aayado ayaan soo dejinay bayinaatin oo cadcad calaamooyin cadcadkan kugu soo dejinay oo nebinimadaada kutusaysa wamaa yakfuru kumana gaaloobo bihaa aayaadka kuma kufriyo ila alfaasiquuna kuwa faasiqiinta ilahay daacadiisa ka baxay mooye yani aayaad astaamo cadcad iyo xujooyin cadcad oo aan dahsaarnayn oo kutusaya inaad nebi tahay baan kugu soo dejin aayaadkaas yani waa aayaadka tanziiliga wey waa qur-aanka ilahay siiye subxana wa tacala waa acdamu mucjizada ugu weyne nebi maxamed la siiy wey salawatu rabbi wasalaamu caleyh waana mucjiza khaalida oo ilaa qiyaami saaca jiri doonta nabigu sal lay slam xadiis saxiixa ayaa wuxuu ku yidhi nebiyadii iga horreeyey nebi walba wax ay dadku ku rumeeyeen baa la siiyey oo mucjiza
aniga kan la iisiiyey mucjizada la iiga dhigay waa qur-aankan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam saas daraadeed waxaan rajaynayaa inaan noqdo midka ugu badan dadka raacsan rususha ka ugu badan yani ugu dad badan inaan noqdo ayaan rajaynayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam marka aayaadka cad waa waxyiga ilaahay ku soo dejiyo qur-aankan aba mucjiza iska cad macna wama yakfuru biha illa alfasiqun oo haduusan waxyi ahayn oo rasuul ilaahay ahayn oo fariin xagga ilaahay aynan uga imaanin inuu reer bani israa'iil waxay sameeyeen dhaqankoodii ka warrama xagee uu ka keenay ma waxa ijtihaad iyo dadaal lagu keeni karaa kutubtii reer bani israa'iil ma akhriyin waxa ma akhriyi yaqaan waxa ma qori yaqaan jasiiratul arab kama bixino yahuud iyo nasaara iyo intuu la kulmay laba noolaanin meeshii maka uun siduu u joogay unbuu waxyigu ku bilowday salawaatu rabbi wasalaamu calayh saa ay tahay haddana wuxuu ka warramayaa bulshadii reer bani israa'iil iyo taariikhdoodii ayaa mid buu uga warramaya soo aayad iyo mucjiso cad ma waa aayad cad oo aan dahsaarnay way macna saas laakiin uu cadahay ninka ilaahay la doono subhanahu wa ta'ala walaqad anzalna haqiiqatan waxaan soo dejinay ilayka adiga xaggaaga aayaatin baan soo dejinay calaamooyin bayinaatin oo cad astaama cad oo nabinimadaada ku cad ayaanu soo dejinay wama yakfuru mana ku kufrinaya biha aayaadka illa alfasiquna kuwa ilaahay daacadiisa ka baxay mooyee kuwa jidka ka leexday oo khariban kuwaan baa ku gaaloobi aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariiqun minhum bal aktharuhum la yu'minun aw kullama mar walba oo ahadu ay ballamaan ahdan ballan nabadahum waxa tuuraya ballanka fariiqun koox oo minhum iyaga kamid bal iskaba dhaafay aktharuhum intooda badan la yu'minuna mar rumaynayaan rabbi subhanahu wa ta'ala waxa kaloo dhaqan u yahuud iyo reer bani israa'iil inay ballamada ka baxaan inay nabiga sallallahu alayhi wasallam intay ballan la galaan ballantii uga baxaan dhaqan bay u tahay waxaad garan kartaa saddexdii qoysay reer Madiina deganaa saddexdooduba intay nabiga ballan galeen bay uga baxeen sallallahu alayhi wasallam markuu magaalada Madiina yimid saddexdoodiba heshiis buu la galay in la wada noolaado leysnimad geliyo qoraal aad u muhiim ah buu nabigu sallallahu alayhi wasallam iyagu kala qorteen sidii loogu wada noolaan lahaa magaalada Madiina cid nabiga cadow aan inaysan u helinin ayagana gaalo ku socota inaan looga helinin waxyaabo in la isla bixiyo la iska kaashado waxyaabo noocaas uu nabigu ku leeshiyo sallallahu alayhi wasallam waxa ugu horeyso ballantii ka baxday reer bani qaynuqa waxa ku xigto iyaguna ballantii ka baxay reer bani nadir oo nabiga dilkiisa isku dayay waxa ugu dambeeyo ballantii ka baxay nimankii loo oran jiray reer bani qurayda oo dagaalkii ahzaab la beegsaday inay xaaladda ciriiriga markuu nabigu ku jiray iyaguna ballanta uga baxan saddexdii qabiilba ballantii nabiga ay la galeen waa ka baxeen saas daraadeed nimanku niman ballan hayaba ma ah ballan ma ilaaliyaan saas macna dhaqamadooda kamid aw kullama mamar walba oo ahadu ay ballamaan ahdan ballan ay ballamaan nabadahu ma waxa tuuraya fariiqun koox oo minhum iyaga kamida miyaa ballantii tuuraya bal iskaba dhaafay aktharuhum intooda badan la yu'minuuna mar rumaynayaano ruux mar haduusan iimaan lahayna ballan male saas macna ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما قرت جاءهم أويمت رسول مركو أويمت من عند الله إله أكتي أويمت رسول كاسو مصدق رمينيا لما معهم وحي أكل تشيرن كوضاها توراة رمينيا نبذ ويتورا فريق كوح ومن الذين كوي كمل أوتوا لسي الكتاب كتاب كلسي كتاب الله إلهي كتاب كيسي أي تورين وراء ظهورهم دبريال كودا قداش وضي كتورين كأنهم سيدي إيقون لا يعلمون أن كم ورهيمين وكلت سيدي إيقون أوغين وكلت أي قدال كتورين معنى هذا وحوي رسول مركوين وانين محمد صلى الله عليه وسلم إلهي أكتي سنة أوغيمت رسول كاسنا كي أكتوضعها أور رمينيو توراة أور رمينيو حق إلهي يكسو دكتي وحي توراة كيالي أور رمينيو رسول كاسي مركو يمد أيا كوح أيا كمدا كوي كتاب كالسيي أيا وحي طوريان إلهي كتاب كيسيبا وحي كطوريان نمر كودا قداشي سي كطوريان شيء مركز فضوضيستو oo aad istikhfaafsato liido marka kadibna aad ka dhaqaaqdo ayaa la yiraahdaa nabadahu waraa dhahrihi dhabarkiisa gadaashiisa ku tuuray danba markaad ka gelinba oo waliba si liidan aad uga tagto
adoo liidayo yasayo hoos u fiirinaya ayaa waxa la yidhahdaa nabadahu waraa dhahri gadaashiisu ka tuuray macna sidii iyagoon weligoodba aqoon u yeelanin oon cilmi u lahayn ay macnaha waxa uu tuuray rabbi subhanahu wa ta'ala kitaabkaasi marka laba waa suurtagal kitaabkii tawreed ahaa inuu oo nabi maxamed oo tawreed uu ku yaalay tilmaamihiisu markuu u yimid rasuul ilaahayna uu ahaa ayna ogaayeen kitaabkii tawreed ahaa wixii ku yaalay oo ah rumeeya nabigaas markuu yimaado way diideen markaasay ku caseeyeen ama kitaabku waa kii nabi maxamed la yimid oo waa quraanko markuu quraanka uu la yimid bay quraankii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu la yimid tawreedna uu markaati kacay ayay intay qaadeen bay gadaal ka tuureeno rumayntiisii ku dhaqankiisii bay macnaha diideen taas macna labadu waa suurtagal kaannahum la ya'lamuna sidii iyagoon ogeyn oo kale oo aan aqoon lahayn waxa sal loo leeyahay ruux haduusan cilmiga iyo aqoonta uu leeyahay uusan ku amal falin sidii ruuxan cilmi lahayn oo kale uu ka dhigay maadaama cilmigu wuxuu keenayay iyo aqoonta iyo garashadu inay kitaabka qaataan oo rumeeyaan cilmigu wixii uu keenayo dalbayay maadaama ay ka tageen sidii iyagoon cilmi lahayn oo kale ka dhigay saas macna ولما قرتي جاءهم ويمد رسول مركو يمد من عند الله إلهي أكتس مركو يمد مصدق رسول كسر رومانيا لما كي معهم لتشيرن كذا كتاب كي توريدها يا أكتو يا ليب الرومانيا نبدا ويطورا يا المركا فريق كوحوا طورا ومن الذين كوي كمدا أوتوا لسي الكتاب كتاب كالسي كوح كمدا كوي كتاب كالسي وإيغا كوي كتاب كالسي هرتاني كتاب الله إلهي كتاب كي سعيه طورا يعني وراء ظهورهم دبرياشو ذا قداشو ذا كتوريا دبر كقداش ذا كتوريا ندنبك قلمايان كأنهم سيدي يقول لا يعلمون أن أغينوا كله أو أن علمي يأقول الله نوكله ساسو كله أقول لك من كتاب الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان سيدي يا وحسن إلهي روحوا هدو هدي إلهي كتبه وكتاب إلهي سودة شيء يسن النبي كتبه قصب وي إنه وحكا لكبدش باطل إنه كبدش هو قصب حدو السنة كتغو إنه بدعا كبدش هو قصب حدو إسلام كتغو إنه قال له كبدش هو قصب مبدئي يطلقن كي النظام كي إسلام كبدشي حدو كتغو النظام كلوا إنه قاتل وقصب أما حيرشتشم هالنغضو أما ميد قال له يسو إرقسي هالنغضو ماشو مبالانا يسي كل وحنبا بوحيني marka maadaama kitaabka ilaahi ay gadaal ka tuureen oo ka tageen maxay ku bedesheen tanay ku bedesheen wadsabu waxay raaceen ma shay ay raaceen tatlu ay aqriyayso ash-shayaatiinu shayaatiintu ay aqriyayso shaydaamadu waxay aqrinayaan bay raaceen ala mulki sulaymaana ay fi mulki sulaymaana sulaymaan mulkigiisa dhexdiisa nabi sulaymaan mulkigiisi xilligii mulkigiisa dhexdiisa ayay aqrinayaan وما كفر ما إن قالوا موسى قالوا من سليمان ما قالوا من بتعليم السحر وتعلمه السحر كبرشدي سي بريدي سكما قالوا ولكن الشياطين شياطين أيا كفروا قالوا بي يعلمون حال أي بريان الناس ضدك السحر كأي بريان وما كين ويبريان أنزل لسودتي على الملكين لوضا ملك دوشو دلوزودتي ببابل بابل أحا الله مرحلية هايين ببابل ميشا بابل إذا هاروت وحي لغسو دجي وماروت وحي لغسو دجي طالبتك وبريان وما يعلمان من بريان من أحد روح بري مايان لوضع ملك سحر كما بريان عدنا حتى يقولا إلى أي كي لهذان روحا إنما نحن أنه فتنة امتحان بانونا فلا تكفرها قالوا والسحر كان امتحان بانك قلنا هاي سحر كان هنقبر انه قالوا لي فيتعلمون مركا وحي برنا يعني دكي منهما لبدا ملك حقودا ما يفرقون وحي كوكلجيان به ما جبا بين المرء وزوجه منك إيحاس كيس أي كوكلجيان وما هم من أين أهان بضارين كوا كل بكراء ما كل بيان به السحر كي من أحد عدنا كمط بالكران إلا بإذن الله إله إذن كي سموه ويتعلمون ويبرنيان ما يضرهم وحد بقى يبرنيان ولا ينفعهم أن أنفعين وحد بمي أن يفضلهين أي برنيان وسحرك ولقد علموا حقيقة وحي أقادين لمن عدي اشتراه إيفسته روحي السحر كبدل قاتو إيفسداي
maa lahu inuusan usugnaanin fi laakhirati aakhara dhexdeeda min khalaaqin wax nasiiba inuusan lahayn. walabi'sa waxaa baas lahaaday maa shay ayaa baas lahaaday sharow ay iibiyeen bihi maagaba anfusahum nafafyaalkooda ay u iibiyeen low kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwo ogoo garanaya way macna. markay ilaahay kitaabkiisii tuureen oo ka tageen bedelkiisii waxay gashadeen sixir bay diin ka dhigteen oy dhaqan ka dhigteen oy shaqo ka dhigteen. wuxuu rabbi leeyahay subxaana watacaala waxay raaceen waxay shayaadiintu akrinaysay nebi sulaymaan boqortooyadiisa waktigeedii. nebi sulaymaan waktigiisii ayaa sixirku aada u faafay. shayaadiinta marka xilligaa dadka waxay beri jireen sixirka iyo bareen macnaha bilaabeen inay baraan. qisooyin fara badan baa aayadan ku soo aroorayoo mufasiriinta salafka qaar ka mida ka soo aroorayo ka imaanaya, laakiin qisooyinka intooda badan ama kulligood waa israa'iiliyaad leh. kutubta reer bani israiil baa laga soo qaaday. naska qur-aanku intuu sheegayo baynu ku kaabsanayn. wixii ka siyaada oo kutubta tafsiirka ku yaalahay aayad qur-aan inama sheegin, xadiis nabina ma sheegin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. waa wuxuu kutubta reer bani israiil laga keenay. yani waxa weeyaan xadithuu can bani israa'iila walaa xaraj, saaun bay iska tahay in layskaga sheekeeyo mooye, laakiin tafsiir uma noqon karto ilahay kalaamkii subxana watacala iyo qur-aanka laguma fasiri karo macna. laakiin inta qur-aanku inoo faa'ideeye waxa weeye yani nebi sulaymaan xilligii boqortooyadiisu ay jirtay shayaadiinta ayaa waxay akrin jireen sixir. reer bani israiil marka sixirkii shayaadiintu akrinaysay bay raaceen. waxaa kaloo aayadda laga faa'iidaysan shayaadiintu markay dadka sixirka barayaan nebi sulaymaan baa laga keenay bay leeyihi. nebi sulaymaan sixirkani waa sixirkii nebi sulaymaan adduunka uu ku haystay. ilan jibankaa u shaqayn jiray, dabaylaha u shaqayn jiray, yani waxa weeyaan waxa makhluuqaad fara badan baa u adeegi jiray. shayaadiinta laftooda ku shaqaysan jira oo ka adkaa ilaahay baa u sakhiray subxana watacaala. marka waxay leeyihiin shayaadiintii sixirkan aan idin baraynaa waa sixirkii nebi sulaymaan adduunka uu ku haystay oo ku maamuli jiray. meesha marka waxa weeyaan waxay leeyihiin nebi sulaymaan baa gaaloobay. oo see ku gaaloobay? sixirka hadduu dadka barayaba waa gaaloobay. taasaa ilaahay diido wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaanu, sulaymaan ma gaaloobin. sulaymaan dad sixir ma barin, mana gaaloobin. reer bani israa'iil oo warkaad sheegaysaanna waa been. nebi sulaymaan iyo sixir iskuma dhawa. waxaan loo sakhiray u shaqayn jirayna awood rabbaani ah oo ilaahay u leyliyey bay ahayd subxaana watacala, ee wax sixir ugu keenay ma ahayn. laakiin cidda gaalooday ma idiin sheegna? waxaa gaaloobay shayaadiinta dadka sixirka baraysa. kuwa gaaloobay waa saas. maxay ku gaaloobeen? baridda ay dadka sixirka barayaan bay ku gaaloobeen. waxaa kaloo dadka barayaan wixii lagu soo dejiyey labada malag dushooda lagu soo dejiyey. labada malag oo joogay meesha la yidhahda baabil, ciraaq bay ka tirsan tahay. labadaa malag oo magacyahooda la kala yidhaahdo haaruut iyo maaruut. labadaa malag wixii lagu soo dejiyey iyagana dadka way barayaan. oo maxay labada malag wixii lagu soo dejiyey? labada malag waxaa loo soo dhiibay oo loola soo diray sixir. sixir baa la yidhi sii qaada. way yimaadeen, baabil bay yimaadeen. dadkiibaa saf u galoo in sixirkii laga bartaa la bilaabay. sixirka laga baranayo marka uu ruuxu u yimaado baa waxay ku odhanayaan war annagu fitnaanu nahay, shirrabid baan nahay, ilaahay baan imtixaan baanu nahay, waxaa naloo soo diray inna lagu kiin imtixaano. ee niyo waxaanu wadno waa wax lagu gaaloobe kacar. ha gaaloobin. sixirkan aanu wadno haddaad qaadato waa gaaloobi. sidaas daraaddeed niyahu fitnadan ha gelina iska jir. hadduu diido yidhahdo aan gaaloobe ibara, way barayaan. laakiin goormay barayaan? waa markay u digeen kadib sooma. nin kuu digay kuma dagin. marba hadduu ku yidhi war waxani sidan weeye, diintaadiiyo caqiidadaadu khatar gelinayaaye ka carar oo iska jir. hadduu isagu u badheero yidhi diintaydi ma rabee sixir ha laygu bedelo, sixirkii bay ugu bedeleen. sixirkii baa la baray. haddii la barayna gaalow. saas way macnaha. marka labada malag ee sixirka loo soo dhiibay ee sixirka fitna ahaan loogu soo dhiibay saa in lagu fasira fiican. waana tafsiirka ay u badan yihiin culimada salaf. waana midka uu rajaxaya alimaam ibnu jariir atabari, imaam almufasiriin, saasuu rajaxaya. laba malag oo sixir keenay dhulka oo loo soo dhiibay imtixaan daraaddii loogu soo dhiibay bay ahayd. laba boqorna ma ahayn, laba ninna ma ahayn, laba malag bay ahayd.
su-aal hadday timaado la yidhaahdo oo malaa'ig baa dad sixirka baraysa soo kama hor imaanayso laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun. malaa'igtu ilaahay ma caasino, wixii ilaahay farayna way sameeyaan. sixirkoo dadka la barana waa dembi, bal waa gaalnimo. say isu ogolaanaysaa marka? waxay isu ogolaanaysaa sax weeyaanoo malaa'igtu ilaahay ma caasi, sixirkuna waa gaalnimo. laakiin ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igtiisa soo amar kuma siin karo inay dadka sixir baraan. hadday iyagu amarkii ilaahay qaataanna cisyaan iyo dembi kumayna dhicin. lianna daacada maxaa la yidhahdaa baan soo marnay, waa amarka ilaahay oo la fuliyo, soo ma? ilaahay amarkiisa ood fuliso waa daaco. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii la imtixaanayo wiilkaaga gawrac baa layidhi, soo ma? wiilkaaga gawrac baa layidhi. wiil la gawracayso dembi ma? waa dembi kabiiro weyn wey. haddana rabbi subxaana wa tacaala nabiyullaahi ibraahim haddii aan xukumka la nasakhi lahayn wiilkiisa inuu gawraco ayuu ku qasbanaan lahaa. hadduu gawracana ilaahay buu adeecaye muusan caasinin, soo ma? waxaan soo marnay malaa'igta inuu ilaahay ku yidhi u sujuuda aadam, u sujuuda. sujuud ilaahay cidan ahayn loo sujuudo soo gaalnimo ma ahayn. haddana malaa'igtu markay u sujuuday aadam ayaga daacay ahayd oo ilaahay bay ka amar qaadanayay, aadamna waa lagu qadarinaya. tanna waxaan odhanaynaa labada malag diridda la soo diray ee meesha yimaadeen imtixaan bay ahayd oo addoommada la imtixaanayay. bal ninka digniinta ilaahay qaata iyo ninka diida ayaa lagu kala fiirinaya, addoommada lagu kala marayay. malaa'igtuna bariday dadka barayeen, ilaahay bay ku adeecayeen, amar ilaahay bay qaadanayeen. saas daraaddeed kama baxsana laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun. saasay daa'iciin ku yihiin oo ilahay ku adeecsanya subxana wa tacala. saas way macnaa intaa la maro wax ka fiican male. wixii kaleeto u laalaab iyo meelo kale ku gelinaysa macnaa. waxaadna ka garanaysaa inay laba malag ahaayeen, xagga ilaahayna laga soo diray, daa'iciinna ay ahaayeen. ruuxa markay sixirka barayaan waa u digayaan, sooma? hadday laba ninoo saaxiriina yihiin war sixirka iska jir miyay dhiilaaya? maya, war sixirka iska jir, ruux wanaagsan unbaa ku dhihi. marka imtixaan bay ahayd, sida ilaahay subxaana wa tacala waxyaalo badan u sameeya. abuuristii ibliis uu abuuray imtixaan bay ahayd, addoommadaa laynagu imtixaanaya. xoolahan laynoo dhiibay iyo adduunyada laynoo dhiibay waa imtixaan. bal mudiiceena iyo caasigaa lagu kala fiirinaya. malaa'igta sixirka loo soo dhiibayna imtixaan bay ahaydoo bal mudiica iyo caasigaa lagu kala saaray. intaa ka badan wax ishkaala ku jira, wax ishkaala marka saas macna halka ayada lagaga baxaa fiican. dadkiiba marka rabbi subxaana wa tacaala ka hadlo wuxuu yidhi waxay ka baranayaan labada malag wax ay ku kala kaxeeyaan oo ku kala geeyaan ruuxa iyo xaaskiisa. ninkii xaaskiisa ku kala geenaya. sixirka noocyadiisa waxaa ka mid a nooc la yidhaahdo yani asarfu waalcadfu, dadka laysku jeclaysiiya ama waa laysku necbaysiiya. midka jeclaysiintu waa midka anaga madiidada dhacno, madiidada waa nooc sixirka ka mid. qaar ka midana guryaha yani dhisan iyo xaasaska iyo nimanka wada joogaa laysku necbaysiiyaa oo quluubtii inta macnaha waxa weye waxyaalay samaynayaan, shayaadiin bay adeegsanayaan, jin bay adeegsanayaan, quluubtii labadii ruux baa la kala jeedinaya, waa laysku diraya macna. labadii isjecla maanta waa kuwa isnacbihiin. marka waa wax dhib leh, wax guryo duminaya oo dadkii isku dirayo isnecbaysiinaya bay ka baranayaan. waxaa la yidhi oo intaa laynoo daba dhigay dadkan saaxiriinta sixirka ka shaqaynaya sixirka wax kuma dhibi karaan alla inuu doono mooye subxana wa tacaala. taasi macnaha waxay yidha bari wax walba idan ilahay buu ku xidhay. awoodtooda wax kuma samayn karaan, awoodtoodana sixirkuna yani si madax bannaan isagu wax uma keeni karo, natiijada ay rabaan kama dhalan karto hadduusan ilaahay idmin subxana wa tacaala. bal waxaa laga yaabaa intay si kasta isugu dayaan inuu sixirka u guntami waayo. limaada? lianna ilaahay baan doonin subxana wa tacaala. ilaahay baan qadarin oo horay u qorshaynin. waxaan ilaahay qorshaynin oo qadarinna ma dhacayo. haddaad aragto ruux la sixray oo sixir qabtayna iyo sixir fulay oo say ugu talagaleen u fulay, ilaahay baa horay u qorshay, sooma? waa wax ilaahay horay u qorshay subxana wa tacaala oo qadihiisa kawniga buu ilahay ku qadaray subxana wa tacaala. saas weeye waxaa taa layna barayaa ilahay ku kalsoonaada. ilaahay wuxuusan marnaba ku talagelin ma dhacaye rabbigaa tala saaro. saaxir iyo falfallow iyo jin iyo midna waxba ku yeeli maayo, rabbi subxana wa tacala tala saaro, isagaa wax walba gacantiisa ku jiraan. saasaa macnaha intaa laynagu baraya. wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala waxay ka baranayaan shayaadiinta wax ay dhib ah oo aan anfacaynin.
wax inuu dhib u geysto mooye aan dheef lahayn bay ka baranayaan waxayna ogyihiin waa sixirka meeshaa waxaad ka garanaysaa sixirku inuu ka daran yahay khamrada sooma waa ka weyn waa dembi ka weyn limaada lianna rabbi subxaana wa tacaala khamrada wuxuu yidhi iyo maysirka qul fiihima ismun kabiirun wa manaaficu linnaas dembina waa ku jira khamaarka iyo khamrada waxoogaa manaafacna waa ku jiraan laakiin maxaa la yidhi markii laga hadlayay sixirka wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum buu rabbi subxana wa tacala wax dhib mooye aan dheef lahayn bay ka baranayaan buu rabbi subxana wa tacaala sixirku marka khamrada iyo khamaarka iyo kulli waa ka weyn waan utagi doona insha allahu tacala waxay barteen buu rabbi subxana wa tacaala oy ka barteen yani malaa'igta iyo labadaa malag iyo suxaradii kaleetaba waxay ka barteen wax yani ciddii iibsatay waxay ogaadeen de ciddii sixir qaadatay oo sixir iibsatay inuusan aakharo wax nasiiba ku lahayn naar ilaahay buu geli mooye janna uma taallo waxaana xumaaday waxa ay naftooda u iibiyeen oo sixirka qaadashadiisa hadday yihiin kuwa wax garanaya oo wax og buu rabbi ilahi subxana wa tacala saas way macana aayaddu waxay si cad u tibaaxday oo si cad ay u caddaysay dadka saaxiriinta inay gaala yihiin intaasoo meelood bay ku caddaysay wamaa kafara sulaymaanu waa laga faa'idaystay sulaymaan ma gaaloobin markay yidhahdeen sulaymaan baa sixirka laga bartay isagaa saas daraaddeed buu ku gaaloobay ma gaaloobin baa layihi waxaa la daba dhigay walaakina shayaaiina kafaruu maxay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa sixra sixirka baridiisa iyo barashadiisaba in lagu gaaloobi bay aayaddu faa'idayn saas weeyaan sixirku inuu barashadiisi iyo baridiisuba gaalnimo tahay ayay faa'iideynaysaa macana waxaa kaloo iyadana faa'iideynaysaa waxaa kaloo laga faa'iidaysan xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur war fitna nahay ha gaaloobi muxuu ku gaaloobi hadduu sameeyo sixirka hadduu bartuu gaaloobi sooma war sixirka ha baranin haddaad barato waad gaaloobi wey waa nas meel kaleeto wey macana waxaa kaloo iyadana aayaddu ku faa'iideynaysaa gadaal dambe marka la yimaado wax dhib mooye aan dheef lahayn wuxuun dheefa hadday ku jirto sixirku macnaha wax weeyaan maaragtay yani dunuubta kale buu la mid noqon laha laakiin dheef yarna male buu rabbi ku tilmaamay subxana wa tacala waxaa kaloo la yidhi ciddii iibsatay oo sixir ka qaadatay aakhiro wax nasiiba kuma leh cidda aan aakhiro nasiib ku lahayn yuu yahay waa un gaal sooma ruuxu mar hadduu iimaan leeyahay waxoogaa iimaan haba yaraadee ku dhinto aakhiro nasiib kuma le lama yidhahdo wuxuuna buu aakhiro ku leeyahay sooma laakiin ruuxaan aakhiro waxba ku lahayn waa gaalka saas daraaddeed saaxirka iyo dadka sixirka ka shaqeeyaayey muslimiin meehe waa gaalo culimo fara badan baana saa ku tagtay inay gaalo yihiin oo muslimiinta ayna ku tirsanayn hadday dhintaan lagu tukan maayo qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo waxba laga dhaxli maayo gaalada culimada qaar ka mid sida imaamu shaafici oo kale tafaasiil bay gelinayaan laakiin daahirka nusuusta waxaa laga qaadanayaa inay ku gaaloobayaan barashadiisa baridiisa ka shaqayntiisa xataa haddaad tidhahdo sixir furyaan samaynayaayo mid la sixray baan ka furayaa waad gaaloobi waxaan u baranayaa inaan isku ilaaliyo anugu inaan ka shaqaysto maa lakin waa isku ilaalinaya sixirkii baa maalmahan batay waad gaaloobi leanna barashada keliyuu rabbi ku xidhay subxana wa tacala iyo barida in lagu gaaloobayo macna sidaas weeyaan rasul sal alay waslam shirkiga iyo gaalnimada sixirku ku xijiyey dunuubta waaweyn markii uu tirinayay rasuulku sal alay waslam saas wey macna watabacuu waxay raaceen maa shay ayay raaceen tatlu ay akhriyayso ashayaaiinu shayaaiintu waxay akhriyayso calaa mulki sulaymaana ay fii mulki sulaymaana ama calaa cahdi mulki sulaymaana sulaymaan boqortooyadiisa waktigeedii xilligii boqortooyadii sulaymaan ay jirtay shayaaiintu waxay akrinaysay bay raaceen oo diin ka dhigteen markay kitaabkii ilahay tuureen way macna sida macnaa waxa wey innaga baadayna haysta kitaab ilahay markii laga tegay baan xeer jajab odayaal ay geed wasti ku sameeyeen iyo nidaam khariban oo reer galbeed iyo gaalo laga keenay baa maxkamadaha inoo yaallo oo nidaamkii iyo noloshii kala wada kitaabkii ilahayna aawe meelaha masaajidda maad ka raadin masaajidda maad ka raadin marka haddii kii ilahay laga tegay ku xunun baa lagu bedela wamaa kafara ma gaaloobin buu rabbi subxaana wa tacaala sulaymaan ma gaaloobin oo sixirka baridiisa iyo barashadiisa midna muusan samaynin walaakina shayaaiintaasi kafaruu gaaloobay oo waxay ku gaaloobeen yucallimuuna waxay barayaan annaasa dadka asixra sixirka barayaan wamaa kiina way barayaan sixirkii wey macnaha wamaa kiina way barayaan unsila lagu soo dejiyey cala almalakayni labada malag dushooda lagu soo dejiyey bibaabila meesha baabil la yidhaahdo
ahaaday yani labada malagoo baabil joogay haaruut wixii lagu soo dejiyey dushiisa iyo wamaaruuta maaruut wixii lagu soo dejiyey malakeynka ka badan waa labadoodii magaco haaruut iyo maaruut baa la kala dhihi jiray labada malag way macna wamaa yucallimaani laba ma barayaan min axadin ruux ma barayaan sixirka qisadan soomaalidu ay ku sheekaysato waa qisa israa'iiliya oo labadii malag markii dambe gabar baa u timid oo zahro la yidhaahdo sheekaa dhex martayo way ku dhaceenoo inta la ciqaabay baa samada laga soo laalaadiyeyoo qaansar roobaadka carabkoodii oo macnaha waxa weye laalaado oo warkaasoo dhan waa qisa israa'iiliya gabadhiina zuhuray noqotay intay duushay bay xigdigta halkaa ka soo baxday zuhuray leeda iftiinka badan bay noqotay oo waxay ka baratay bay ku duushay oo waxaasoo dhan wax jira ma waxaasoo dhan waa qisas israa'iili ah nas cad oo markhaati kacana lama hayo aayadna lama hayo saas daraaddeed sheekooyinka ka baxay intaa wuu ku gaabso ayib wamaa yucallimaani ma barayaan min axadin ruux ma barayaan sixirka ma barayaan xataa yaquulaa ilaa ay yidhaahdaan labada malag inamaa naxnu anagu fitnatun imtixaanu baanu nahay ee falaa takfur niyo ha gaaloobin imtixaanu baana loo soo diro wax kale uma soconno ee niyo ha gaaloobin sixirka barashadiisa ha ku gaaloobin fayatacallamuuna way baranayaan minhumaa labada malag xaggooda waxay ka baranayaan maa shay yufariquuna ay ku kala geynayaan bihi isaga bayna almar'i ruuxa dhexdiisa iyo zawjihi xaaskiisa ninka iyo xaaskiisay ku kala fogeynayaan oo ku kala durkinayaan aad baa waayahan uu sixirkaasi usoo kordhay oo guryaha in lagu dumiyo loo isticmaalo yani waxa weye habro iyo odayaal iyo qolyo suufiye sheeganayo iyaga laftooda barnaamijkan aada uga shaqeeyey iyo baa meelahana ku jira godad iyo musas meelahan ah bay fadhfadhiyaan markaasaa waxaa loo leeyahy maaragtay waa daktaria kiyeji waa daktarka ka shaqeeya maaragtay waxyaalahan yani daawada acshaabti waxaasu ka shaqeeyaan boord weyn bu meesha ku qoranay waxay islaam kusii qulqulaysay ka soo baxaysa wadyaabeysa saas waxyaalaha intaa laga shaqeynayo wax kala maaha guryaha la seexraya mid wadaadkii inuu la guursado uu damcay oo yani doonaysa inay guurto xidho mid kaleetoo maalka ka baabi'inaysa yani waxa unbaa laga shaqeynaya macna saas weeyaan marka arrin halisteedan wey fayatacallamuuna way baranayaan minhumaa xaggooda waxay ka baranayaan maa yufariquuna waxay ku kala geeyaan bihi isaga bayna almar'i wa zawjihi ninka iyo xaaskiisa wamaa hum mana aynan ahaanin bidaariina kuwa ku dhibaya bihi sixirka min axadin axadna kuma dhibi karaan ilaa biidni illahi ilahay idankiisa mooye halkaa unaad u istaag ilaa biidni illah wuxuu ilaahay kugu talagalayna ku seegi maayo wuxuusan kugu talagelinina kuma gaadhsiin karo saaxiib meelahaas wax sheegsheegayahay haddaad ilaahay ku xidhanto adkaartaada akhrisatood rabbi tala saarato wuxuu ku yeeli karaa iska sooma saas weeyaan ayib wayatacallamuuna way baranayaan maa yaduruhum wax dhibaya oo walaa yanfacuhum aan anfacaynin bay baranayaan walaqad calimuu xaqiiqa waxay ogaadeen laman ciddii ishtaraahu iibsata maa lahu inuusan u sugnaanin ciddii sixirka gadatoo qaadatahay maa lahu inuusan u sugnaanin fi laakhirati aakhara dhexdeeda min khalaaqin wax nasiiba xad dheef kuma leh aakharo oo macnaha naartu geli wey walabiisa waxaa xumaaday maa shay ayaa xumaaday sharow ay iibiyeen bihi isaga anfusahum nafyaalkooda ay u iibiyeen badeecaday iibsadeen oo sixirka ah oy qaateen ayaa xumaatay oy bedel qaateen macna law kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwa og hadday yihiin walow annahum iyagu aamanuu hadday rumayn lahaayeen oo wattaqow ay cabsan lahaayeen lamathuubatun yani abaalmarin lamathuubatun hawaabsiin oo min cindi illahi ilahay agtiisa ka ahaat ayaa khayrun khayr badan law kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwa og hadday iimaan alla oo la rumeeyo iyo xaq oo la rumeeyo iyo cadaabka ilahay oo la iska jiro oo awaamirta ilaahay la qaato xagga yani waxa weye hadday taa samayn lahaayeen bedelkay sixir aadeen hadday sharciga ilaahay iyo diintiisa qaadan lahaayeen abaalgudka halkaa ka imaanaya u dhaami lahaa sixirkan iyo waxan ay ka shaqaynayaan tanaa u dhaami lahayd wy maana hadday dad wax garanaya oo og yihiin walow annahum iyagu aamanuu hadday rumayn lahaayeen oo wattaqow ay cabsan lahaayeen ama cadaab ilaahay ay iska ilaalin lahaayeen lamatluubatun yani tawaabsiin iyo ajirsiin oo min cindi illahi ilahay agtiisa ka ahaatay yaa khayrun khayr u ah iyaga ama u khayr badan law kaanuu hadday ay yihiin yaclamuuna kuwa og hadday ay yihiin macna hadday kuwa garanaya yihiin sawaabka iyo dhinac aakharo iyo ajir raaso iyo diin ilahay ku dhaqan iyo kitaab ilahay raac xaggay aadi lahaayeen sixir iyo badiisa mayna gala way macna yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacina waquluu nzurna wasmacuu walilkaafiriina cadaabun aliim aayadani waxay ka hadli reer bani israa'iil haddii laynooga soo warramay qaab dhaqankooda
قاعدة مهمة وقواعد الشريعة كم ذي آيات السجس أما تشيدينيس معي إن أن للتقليدين وأن لقد ينين الله راعين قال بطاقنكم أصلا إن الله راعين وحيكون ميان أدين كان إن الله راعين وحيكون ميان هذه آية قال يا أيها الذين كوا آمنوا الرميين لا تقولوا هدينا راعنا ما إلالي نحس هدينا وقولوا وحاسة الأعلان انظرنا يعني النكد نسب أما النكد واسمعوا مقل وحل إليه وللكافرين قالوا وحا أسنا عذاب أسنا أليم وحنوج وحيئة وكام ليس يهودا مركي النبي قال الله صلى الله عليه وسلم فوحا يقول انتنا راعنا يعني راعنا ذو كلمة عربية كلمة عربية مركي معناها ذو وحويان ومعناها النحفظي والإلالي وظروفها لك قتلوي ساسي كده طيب مركي النبي قال الله في كلمة الاستعمالية عربي السلاح كوها كلمة لكن لقد يهود عبرانية ده معنى كلمة كلمة كتصيص راعنا من الرعون اللي كانوا بدهانه وحي معناها كونين او معناها يجوا استعمالي تشير اللقد هذا روح النعسكة روح الدخنكة يعني اللي في عينيه كاسا راعنا راعنا وحا مركا استعمالي مؤمنين فيه نبي الرسول صلى الله عليه وسلم بالراعنا استعمالي يهودنا واستعماشون النبي هو استعماش لكن مؤمنين معنيه صحبة هذا يجوا وطن يهودنا ما حيكوفص وداء ويكوفص قليلا معنيه حمار يكوفص ودان راعنا كلمة تداسا لقد عربي قال معناها الصحبة كله لقد دولنا معناها حل كله تأثر بيت أهام بين النبي هو استعمالي يرأيه وكعاي مؤمنين في بكوكة سنية وحلي راعنا مرحة طيبة حمار استعمالين كجورة يدو دنبا كلمة دنبا وقوة تقبع متكلسة ولا معناه واستعمال بوس كذا واحد ترهان انظرنا نسوده نوكرو اما النوكاري سيدة اسمه بمعنى انظرنا مركا استعمال الراعنا كبعا محايا لما دام عين لقوها سقرين ايوه كيسكتا يلي يهود وقبعا حدين يهودي كبع ليلي وها استعمالين اللي المؤمنين في كلمة يهودي استعمال شيء يهود ما استعمالك الصلاة مركا ما يستعمالي كلام ساس برادة بالنوجد الراعنا حديه لبربه سبحانه وتعالى لكن بدل كده واحد استعماشان انظرنا استعمالا للمعنى انظرنا بمعنى وحويان نوسك اما نوكر اما نوكاري ساس معنى انظرنا نوكر اما انظرنا وحل كرام صوفيري من نظر اليه فاين لقد سوق هذا واسورة قلب طيب يا ايها الذين كوا امنوا الرميين لا تقولوا هدينا الراعنا لا الالها اورمنا كلمة الراعنا هأورانينا أولي هو استعمالنا محايا عيب يكون هستوغ هيانو نعس أو كليتا كوز وقولوا وحسب هذا بدل كذا انظرنا نسوق أو نوكر لها النبي نوكر هذه انظرنا كلمة استعمالها واسمعوا مقلنا وحا النبي بإذن الله صلى الله عليه وسلم ويأمرك إلهي قاتا وللكافرين قالوا وحا أسمنا عذاب أسمنا أليم وحنوشيا مركا كلمات استعماليين حدين لينودي إلى استعماله بقن كودين إلى المقابلة واليونتي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم النبي صلى الله عليه وسلم ننكي ضد سوء كيسية أو بالشكل بقن كذا قاطع يقول لبستان قاطع وحو أركانه أركسيضه قاطع يسمى مولان قاطع معنى وحو قدريان قاطع أخلاق ذو أيتاي قاطع قريوه ذو مولان قاطع بلشده ذو مولان يعني وحويان روحي بلشة اسكو شبه اما روح اسكو شبه ايبو كتير فيه ابن نبي صلى الله عليه وسلم ساسي معنا مركب بقن كقالة ستو بين الخلافون روح مرها دو ايمان ليه dadka uu dhaqanka kaga bayanayo labiska kaga bayanayo xirashada uu kaga bayanayo akhlaaqda uu kaga bayanayo dadka iimaanka ama gaalada Soomaa maya hadaad ku dayato adigu ayaga kamid tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam saasi macna maanta marka wax badan baa sanadii laga haysto yaani waxa way khaasatan dadkii daayirka iyo dhalinyaradi inay gaalo adoomo u noqdaan baa laga kirlay gaalo inay adoomo u noqdaan baa laga kirlay in aad ilaahay intaan u madax banaanaato rabbiga adoon aad u noqoto
sharcigiisana aad qaadato xurriyad ka fiican miyaad ogtiin inuu gaal isku kaajaya oo aan istijaysanin oo aan mabda' lahayn oo aan caqiido lahayn uu kolba adiga wax kuu soo dejiyo dhaqan kuu dejiyo qaabku isagu rabo kuu maamulo labiska midka aad yani wax weeyaan aad fadisho uu noqdo maalin walba midka telefishinka ka aragto uu ku tuso qaabka loo xiirto uu noqdo kolba qaabka iyagu idin tusaan oo aad aragtaan qaabka loo labisto uu noqdo kolba qaabka iyagu idin tusaan oo aad aragtaan yani waxay soo diinimo ma haddana saa ay tahay waxay moodhayaanba ilbaxnimo oo waxay meel fog bay laacayaan waxay isleeyihin wallahi dadkani tagay ka daba taga waa isla kumay qof saas lagu gaari maayo waa dullowdeene oo gaalaa idin addoonsatay addoonsiga ka baxa rabbi keligii addoon u noqdo subxana watacaala addoon xun intuu ku addoonsanayo rabbigaa keligii addoon u noqdo subxana watacaala yani waa dhaqanka hadda taagan dadka da'yartaa telefishinkiiyo waxa haga idaacada meeshaasa looga taliya akhlaaq walba halkaasa laga maamula markaasa waxaa arkaysaa maalin sarwaalka beled baa laga dhigay maalin waaba la gogoynahayaayo karmo isa saarsaaro baa laga dhigay oo dhan maalin dhulkaa lagu jiidayaa maalinna waxaa la geenaya lawiyaha agto war xaggee waxa laga maamulahaya maalin sheegabaa la xiiranaya maalinna timaha la sii daynaya shaydaan baad mood xagee leekan wax waa dhaqan gaalan nabiguna wuxuu yiri sal alay wasalam man tashabbaha biqawmin fahuwa minkum addoonnimada ha laga baxo saas wey macana ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود مشعران يعني الذين كفروا قالوا ومن أهل الكتاب كتاب كذتكسي ولا المشركين إذا قالوا طولا ما يسعنا أن ينزل إن الدجي عليكم دشينا من خير إلى نكسودج من ربكم حق ربك إلى نكسودج والله الله يختص خاسيري برحمته نحريس تسوعك خاسيري من يشاء عد دونك خاسيري والله الله ذو الفضل متك ديراتين صاحبه العظيم وين كبرا يعني ديراتين وين كي رب بحيوه سبحانه وتعالى فالوحي ينجلس على وده إنه nimanka waxaynan isugu shabahaynin oo dhaqankooda laynooga digayaa oo ka fogaada laynoo leeyahay wax kale ma khayrba in xagga ilaahay idinka yimaado ma ay jecla khayrkaasi waa mid adduunya mid aakhiraba inaad adduunyada cizi yeelataan oo sharaf yeelataan oo magac yeelataan oo xoolo yeelataan oo madax bannaanaataan ma rabaan aakhirana inaad janno ilaahay iyo naxariis gashaan ma rabaan wax khayra xagga ilaahay idinka yimaado ma rabaan inaad dullowdaan adduunya aakhirada saasay jecelihiin rabbi ilaahi subxaana watacaala marka ma kuwaasaad ku dayan ma kuwaasaa la jeclaan ma kuwaasaa la taqliidinoo macnaha waxa weye dhaqan ugu raaci abad ruux dulloway ama waxba la soconin uma kuwaa ku dayan wey macnaha maa yawaddu ma jecla aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ma ay jeclaanayaan ama ma jeclo oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisa ah wala lmushrikiina iyo kuwa ilaahay u sharigiyeenoo gaalada intoodii kale ah ma ay jecla an yunazala in la dejiyo calaykum dushiina min khayrin khayr haba yaraan hadduu rabe min rabbikum xagga rabbigiin in laydinkaga soo deji khayr adduunya mid aakhira doona xagga rabbi in laydinka siiyo ma ay jecla wallahu allana yakhtasu wuu khaas yeeli jacaylkooda wax ku socon maayaane ilaahay naxariistiisa ninkuu doonu ku khaas yeeli kitaab baa naloo soo dejiyey iyagoo raalli ka ahay rasuul baa naloo soo diray iyagoo raalli ka ahay dawlad baa noo dhalatay iyagoo raalli ka ahay adduunkaan maamuli jirnay annagoo raalli ka ahay iyagoo raalli ka ahay waanu maamuli doonaa iyagoo raalli ka ahay soo saas ma wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa maayagaa adduunka maamula mise ilahay baa maamula والله allana yakhtasu wuu khaas yeeli biraxmatihi naxariistiisuu ku khaas yeeli man yashaau ciduu doono wallahu allana dulfadli kii dheeraadsiinu saaxiiba wey alcadiimi hu fadli weyn kiu saaxiiba wey rabbi subxaanahu watacaala ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ تنينا وحوري شبهة كليتو أي كينين فلا جوابية وحي لهذين توراة إن إلهي سودتشي والنبي موسى لقو سودتشي وقرسمتين هذه إلهي كتاب سودتشينا كتاب إلهي سودتشي لنوه بالدلباء saas daraaddeed injiishan ay sheeganayaan nasaaradu waxba kama jirto idinka ummatu muxameda kitaabkaad sheeganaysaan ee qur-aankana waxba kama jirto maxaa yeelay kitaab ilaahay soo dejiyey iyo axkaam uu jideeyey lamama bedelaba mas'alatu naskhi mas'ale la yidhahday marka meeshaa ku inkireen oo xugum ilaahay soo dejiyey ma bedeli karaa mise ma bedeli karo waxay soo istaageen lama bedeli karo taasaa iyadana laga jawaab waxaa wuxuu rabbi yidhi maa shaygii nansakh aan bedelno oo min aayatin aayad ah
aw ama sanunsiha an hal mansino cid xusuusana qalbigiisa ku jirto aan ka saarno naati wa la iimaanayna bi khayr wa ka khayr badan minha ka an badalay aw ama samithliha midna min la iimaanayna alam ta'lam yadan ogeyn anna allah alla ala kulli shay wa huwa badushiisa qadirun ya bidawad ayad hadan badalo ama aanu hal mansino qalbiga ka tirno dadkii xifdisna qalbigooda aan ka tirnay mid ka khayr badan baan ku soo bedelayna oo la iimaanayna ama mid la mid aan ku soo bedelayna saas macna nafsiga wa mas'alada yani culumta usul fiqhiga iyo musalah alhadith iyo lagaga hadlo waxa weeyaan xugum hore oo ilaahay hore u soo dejiyay ayaa waxa ka daba iimaanaya xugum dambe oo alla soo dejiyay kii horena waa la bedelaya kana booskiisa la dhigaya marka nafsigu laba midba uu noqdaa aayad soo degtay lafdigeediiba inta meesha laga saaro oo quluubtana laga masaxo misxafkana yani waxa weeye nabigana sallallahu alayhi wasallam loo sheego in la bedelay lafdigii aayadda lafteedii la bedelay الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله آية القرآن لكن هذا القرآن من يقول ما يوال بدلي قرآن واحد شيء السود دقي هذا اللفظ يجي سنة بدلي نوع الله هذا واحد ويا اللفظ يجي لما بدلي حكم كيف على بدلي لفظ يجي ماشي كياله أو القرآن كتابه كياله لكن واحد كذب إيمانه حكم كوشيء حكم كلو الديني مثلا خمرة وكلام قصو قادم خمرة آيات واحد شيء لقى فإذا سنة إنه بنانيت إسلام كبلوجيس صدر الإسلام إنه بنانيت صوما هذا لو واحد كذب يمد آيات دينية خمرة دي أو حرمية ووضي بقرآن كياله صوما حكم كيف أمريكا لبدلي حكم كيف لبدلي أحكام تمركا وحدا لسودجين ولا بدلي مدو جيريا ولا بدلي وحي ان بدلو اما ان هل منسينو dadkii xifdisna mid ka khayr badan baan ku soo bedelayna oo keenina ama mid lamid see uu uga khayr badan yahay wuxuu uga khayr badnaan karaa ama uu ka fudud yahay oo xukunkii hore mid ka fudud way oo uga fudud adoomada dhanka waa uga khayr badnaan karaa soo ama ma xukunkii hore kama fududee uu ka cuus yahay oo waa ka adag yahay laakiin xagga ajirku kaga badan markaana soo kama khayr badna marna dhanka ajirku khayrku noqonaya marna xagga fudaydka ayuu ajirku noqonaya marka kalena aayadii hore aayad lamid ah xagga nafciga iyo ajirka intaba kula mid ah ayaanu soo dejinayna oo keenayna rabbi subhanahu wa ta'ala ma shay'in nansakh an badallo oo min ayatin ayada aw ama sanunsiha nansaha wa qira'a kale أو أما سننسها أن المنسين عدي حفظسني نأتي ونلا إيماننا بخير وحك خير بدن منها آية أن بدلي أو أما سننسلها مد إيضا كلا أن الله إيماننا مد إيضا كلا أن الله إيماننا حقا يعني مصلحة أي فإذين حق تخفيف حق أجل كما ألم تعلم ياذا الأغين أن الله ألا على كل شيء وحل بده شيء قدير مأود إلهي سبحانه وتعالى أودي سوحا كمدا إنه شرعي سوحو دوننا حلالين كرا وحو دوننا حرامين كرا صلا محاك تاوي يا شميع وليه كرا سيدأو أدومدي سروحو دونا أدري روحو دونا أمالين متكو دونا فقير أغلقي متكو دونا غني أغلقي متكو دونا بقرطوية أدري كربا أغلقاري سيدو أمامنا كربا عروسي كربا أغدري adduunyadooda si ugu maamulo buu diintoodana ugu maamulo oo wuxuu doonana wuu xalaaleyn wuxuu doonana wuu xaraameyn xukunku rabana wuu bedeli xukunku rabana wuu keeni soo yani waxa faa'iideynaysa alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir adduunyadiina wasuudu ku taliyo sharciga isaga idin taliyo wuxuu doonuu dejin wuxuu doonana ilaahi waa bedeli subhanahu wa ta'ala awooduna u leeyahay saas macna tayib alam ta'lam niyadan ogeyn anna allaha alla lahu istagayna usugnaday mulku samawati سماوات كبقرتويدة والأرض بلك بقرتويدس وما لكم إذن من سبنا من دون الله ألا سكدي من ولي مد أمرك نتوليا وقعنك بقرت ولا نصير يمد إذن هي طول مالك إذن ألم تعلم يا ذنبين أن الله على الله على رسول هذا ملك السماوات كبقرتويدة والأرض بلك وأصوت وكيل وما لكم إذن من سبنا من دون الله ألا سكدي من ولي هو سكي مد إذن حضره الرميه نقبته ولا نصير يمد إذن هي طول إذن ما سبنا أم أمسه تريدون ما واحد دون إذن
an tas'aluu inaad weydiisaan rasuulakum rasuulkiina inaad weydiisaan kamaa sidii su-ila loo weydiiyey oo kalete muuse min qablu qur-aan waman yatabadal ruuxii badel qaat alkufra gaalnimada biliimaani iimaankii ruuxii ka badel qaataay faqad dalla wuu lumay sawaa'a sabiili jidkii toosnaa bartamihiisu ka lumay sawaada waa bartamaha jidka dhexdiisa buu ka leexday oo ka lumay macna tanina waxa weeye ma waxaad doonaysaan rasuulkiina inaad weydiisaan sidii su-aashii nabi muuse la weydiiye oo kaleeto oo maxay su-aashii nabi muuse la weydiiyey reer bani israiil waxay ku yidhahdeen arina allaha jahratan sooma ilaahay na tuso si muuqaal ah oon qarsoodi lahayn oo caddaan ah noo tus warma su-aalo noocaas oo kaleo macangegnima baad doonaysaan idinkuna nabigiina inaad weydiisaan hayelina laleeyahy macana saas weeyaan yacni waxay ku yidhahdeen haddaad rabto inaanu ku raacno buurta meesha la yidhahdo maka buuraha ku yaalla waxaad nooga dhigtaa dahab saxaradan kadaata lagu noolaan la-yahayna webiyo durdura nooga dhig intaasoo wax bay soo bandhigeen soo ikhtiraacdeen marka waxaa la leeyahy war su-aalahan macangegnimada ma waxaad doonaysaan reer bani israa'iil su-aalihoodii oo kaleeto nabi muuse ay weydiiyeen idinkuna nabigiina inaad weydiisaan miyaad doonaysa waxaasoo kale marka loo baaro way maana rasuulkeena sal ly slam waa kii dhihi jiray yani muslimiinta waxaa ugu dembi weyn ruux intuu su-aal weydiiyey su-aashuu weydiiyey daraaddeed ay ku timid shay inuu ilaahay ummadda ka xaraameeyey su-aashiisa sababteedaa shay lagu xaraameeyey ruuxaasaa muslimiinta ugu dembi weyn bu nabi sal lay slm saas daraaddeed su-aalaha iska yareeya wax haddaad su-aashiisa badisaan waxaa laga yaabaa in macnaha waxa weeyaan saad rabteen si aanan ayn ku imaanin haddaad ka aamusi lahaydeen ay idiin dhaami lahayd laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazlu lqur'aanu tubda lakum marka su-aalaha yareeyo haddaad su-aal weydiinaysaana su-aal aan macangegnimo ahayn oon xujo ahayn oo aad wax ku faa'iidaynaysaan aad wax ku faa'iidaysanaysaan weydiiye ruuxii gaalnimo bedel qaat oo iimaan ka dhaafsado ku badashahay jidkii saxdaa waa ka lumay rabbi subxana wa tacaala am turiiduuna mise waxaad doonaysaan amta adigu waxaad iska diraa idraabiye iska dhig am bal iskaba dhaaf saas meeye turiiduuna aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tas'aluu inaad weydiisaan rasuulakum rasuulkiina inaad weydiisaan maxamed sal alay slam kamaa sidii su-ila loo weydiiyey oo kale muuse tii la weydiiye oo kaleeto su-aalan oo kamaa su-ila muusa away macna su-aaltii nabi muuse la weydiiye oo kale inaad nabigiina weydiisaan miyaad doonaysaan min qabl qur-aan waman yatabadal ciddii bedel qaadat alkufra gaalnimada biliimaani iimaanka ruuxii ka bedel qaata oo ku badashahay faqad dalla waa lumay ruuxaasi sawaa'a sabiili jidka toosan bartamihiisa iyo dhexdiisa waa ka luma waa ka habaabay wadda katiirun min ahli lkitaabi cadaawadda inoo hayaan baa haddana lasii muujin oo lasii cadday waxaa la yidhi wadda waxay jeclaadeen katiirun in badan oo min ahli lkitaabi ahlulkitaabka ah waa yahuud iyo nasaare waxay jecel yihiin low yarudduunakum inay idinka ahaysiiyaan min bacdi iimaanikum iimaankiina gadaashiisa inay idinka ahaysiiyaan kufaaran gaala inay idinka ahaysiiyaan oo maxay naga rabaan xasadan xaasidnimo daraaddeed oo min cindi anfusihim nafafyaalkooda agtooda ka ahaatay xasad uun ayagu jeebka kala yimaadeen min bacdi maa tabayana markay caddaatay kadib bay saa yeelayaan lahum iyaga markuu u caddaaday alxaqu xaqii markuu u caddaaday kadib inaad xaq iyo gar ku sugan tihiin markuu u caddaatay kadib bay saa yeelayaan ee facfuu iska cafiya wasfaxuu iska dhaafa xataa ya'tiya allahu intuu ilaahay kala imaanayo biamrihi amarkiisa intuu kala imaanayo ina allaha allana calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirunkii awoodo ahlulkitaabka oo yahuud iyo nasaaraha labadaa bulsho waxay jecel yihiin in ay markaad iimaan la timaadeen kadib gaala idinka ahaysiiyaan waxaa dhibaya inaad mu'miniin ahaataan iyaguna gaalo noqdaan taasayba dhibsanayaan in waxaa la rabaa inay wada gaaloobaan in la wada gaaloobo oo aan naarta la wada galo bay ka shaqaynayaan maxaa yeele xaasidka waxaa la yidhahdaa waxay saa u yeelayaan xasadnimo daraaddeed xasadkana waxaa la yidhahdaa waxaadan adigu haysanin aan nicmo ruux kala hayst oo ilaahay siiyey inaad jeclaysato in laga qaado waa nicmo diineed ama waa nicmo adduunyo in laga qaadaba mar haddaad jeclaato xaasid baad ama adiga ha kugu soo wareegto markii isaga laga qaado kadib ama sideedaba banaanka ha ku lunto meel laba yaan la geynini haddaabad jeclaato in ruuxa nicmada laga qaado waa xasad nimanka waxaa ku bixinaya inay iimaankiina dhibsadaan gaalnimona idinla jeclaadaan waa xaasidnimo daraaddeed rabbi subxana wataala oo agtooda ka ahaatay haddana weliba saa waxay yeelayaan markuu xaq u caddaaday kadib nebi maxamed inuu rasuul yahay
kitaabkani inuu xaq yahay ummadani inay tahay ummadii saxda ahayd jidkaan hayna inuu saxsan yahay iyagu inay khaldan yihiin markay u caddaatay kadib way markay xaasidnimada ku kacayaan oo idinla jeclaanayaan arrinka isaga saasuu rabbi ilahi subxana watacala maxaa kala marka ma laynaa ow iska cafiyaan oo iska dhaaf inta amar ilahay ka imaanay inta ilaahay amarkiisa ka keenayo saa ku sameey amarka ilaahay imaanayo wuxuu yahay amarka ilaahay imaanaya laba mid buu noqon karaa in uu yahay aayaadka rabbi uu leeyahay laaya oo la dagaalama laanna markani waxay ahayd mar horay ahayd aayaadka la leeyahay la dagaalama oo laaya amarka la sugayo waa kaa ee aayaddan lagu xidhay intay taasi ka imaynayso iska sugo iska cafiya waxaa kaloo suurtagala in laga wado amarka ilaahay xukumkii ilaahay uu ka gaadhay iyaga oo waktigiisii intuu ka imaanayo oo magaalada madiina laga bixinayo xilligaa inta laga gaadhayo iska macnaa waxa wey iska cafiyo oo iska sabro oo dhibka idinkaga imaanayo ha ka ficin la qaadanina saasuu rabbi ilahi subxana watacala ayib wadda waxay jeclaadeen katiirun in badan oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisa ah low yaruduunakum inay idin celiyaan iyo low yaruduunakum inay idinka ahaysiiyaan min bacdi iimaanikum iimaankiina gadaashiisa kufaaran gaala inay idinka ahaysiiyaan xasadan xaasidnimo daraaddeed bay saa u yeelayaan oo min cindi anfusihim nafafyaalkooda agtooda ka ahaatay naftooda uun kasoo fushay wey macnaha ayib min bacdi ma shay gadaashii ayay saa yeelayaan tabayana min bacdi maa tabayana markuu u cadaaday kadib dhe lahum iyaga alxaqu xaqii markuu u cadaaday kadib markuu xaqii u cadaaday wax kala garteen kadib bay saa yeelayaan facfuu iska cafiya oo wasfaxuu iska dhaafa safxiga iyo yani cafwiga farqiga udhexeeya cafwiga waxaa la yidhahdaa ruuxii inaadan dembigii uu kaa galay aadan ka goosanin iska dhaafto safxiguna waa ka sii xeeldheeryahayo qalbiga waxaad ugu haysan inaad ka saarta la yidhahda qalbiga markaad wixii ku jira ka saarto safxi baa la dhaha markaas argoosigii uun ka daysa laakiin qalbiga wax ugu hayso waxaa la yidhahdaa cafwi baa la yidhahda saas waa isku macno uyi xataa yatiya allah facfuu iska cafiya oo wasfaxuu iska dhaafa xataa yatiya allahu intuu ilaahay kala imaanayo biamri arrinkiisa intuu kala imaanayo oo in magaalada madiina laga saaro ah lana cadaabo maalinta qiyaamada ama amarka oo aayaadka amraya in lala dagaalamo macna xataa yatiya allahu biamri ina allaha alle calaa kulli shay wax walba dushiisa qadiirun kii awooda wey macna tan marka maanta inugu socotahay waxay qayb ka tahay arrinkaa ilahay uu ka warramay subxana wa tacaala oo inaysan khayrba inala doonaynin khayr in laba roos oo ayadii horma dhin tanna iimaankiinay ka xun yihiin oo gaala inay idinka dhigaan bay doonayaan soo lama dhig inta jid way inoo marayaan mataqaana marka jid kasta inoo adeegsanaya dhaqaalaa lagu adeegsan waxaa lagu adeegsani siyaasad baa lagu adeegsan waxaa lagu adeegsan tacliimtii iyo waxbarashadii iyo manaahijteedii baa lagu adeegsan hungurigaa lagaa soo geliyo hay-ado wax ku siiyaa lagu soo diri wax lakuu samafalayaa laysee kaa dhigi adigii baa laysku kaa diriyo fooda laysku kaa gelin goortaad eber iska dhigtana wax kuusoo gurmanayaa layska dhigi intaasiga goortay ku anfici weydana xoog iyo awood baa lagu isticmaala sida hadda ciraaq ka tahay afghanistanna ka dhacay sooma furo kaloo dhan markuu ku geli waayo ood isa soo taagto markaas waxaway furo ku geli baa jira xoog wey markaa meelay dhigtaba laakiin furo kale intuu ku geli karo furaha kalaa lagugu waday caalamulislaami midda lagaga shaqaystana waa furaha kaloo waa duulaan maskaxda lagaga duulay wey waaba layna haystaaba yani waxaynu kuba shaqaynayna waa fikradahoodiiba midka mutaqadka wax yaqaana fikradoodu ku shaqayn odaygu fikradoodiibuu ku shaqayn siyaasigu fikradoodiibuu ku shaqayn ama hunguri ha ka doona ama yuusan is ogaanayna laakiin waa horaaba layna abuurtayba rag baabayna samaystay oo macnaha wax wey aynu urlalla midka dhadhawaaqhayo wax fahansan oo meelaha lagu arkana waxaa lamidii qaacidu kasoo jeedaa qabta waa midka wax fahansan waxoogaa oo is yidhahdaan wallahi ninkani waa idin dareensan yahay waxay leeyihin waa argagixiso qarax buu rabaa balaayu qaribaya qabta la leeyahy kuwii la joogay inay yaqaaneen baa lagu diri oo bulshadiisii baa lagu diri oo dawladiisii baa lagu diri oo iyagaa qaban oo dili saas wey maana goormaa marka hurdada laga kici doona wallahu aclam ayib rabbi wuxuu yihi subxaana watacala marka wa aqiimuu toosiya asalaata salaada toosiya oo wa aatuu bixiya azakata zakadana bixiya wamaa shaygii tuqadimuu aada hormarisaan lianfusikum nafdiyaalkiina aada u hormarisaan oo min khayrin khayra tajiduuhu waad helaysaan cinda allahi ilahay agtiisaaad ka helaysaan isagoo intii hore ka khayr badan wey ina allaha allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii arka wey salaada hagaajiyo si fiican u tukada sakadana siiya dadkii iska lahaa
waxaad hormarisaan oo adduunka baxsataan oo khayr oo la timaadaana maalinta qiyaamada helisaan ilaahay kiisad keelis marna la dayici maayo lama hadlayna wuu yaala Allah subhanahu wa ta'ala waxaad samaynaysaa wuu arkaa basiirun wa arka rabbi subhanahu wa ta'ala wa aqimu tawsiya as-salata salata tawsiya wa atu bihiya az-zakata zakata rabbihiya dadkeeda siiya wama shaygi tuqaddimu hormarisan li anfusikum nafiyalkina hormarisan wama shaygi تقدموا أظهر مرسان لأنفسكم نفيالك نوهر مرسان أدوك قلت ما دون ومن خير خيرا تجدوه وانهليسان عند الله إلهي أكتساد كيليسان إن الله بما تعمل أبال قد كساد لسان إن الله بما تعملون واحد طمين إسان بصير كي أركو وحقاب الله لحق القليني مركي قصده عبار لقاها الله ولا لا لحق القليني أو نغني إلا هذا القهدو هل قاب ونكسعد ولا قد دالي صوما شاكنا ولا بدبدلها ساس درادد مروى شيكو ايغي با ديب لوغو نقو وا laga bixi saas macna طيب وقالوا waxay yiraahdeen lan yadkhula kalimayo aljannata jannada kalimayo illa man iddi kana ahada yahuudan yahud aw amasa nasara amoy tilka midasi amaniyuhum wa sayjalaayeen wa sayigu jecelihin way macna waxa ku tirada haatu keena oo la imaada burhanakum hujadina keena in kuntum daatin sadiqina qurun shagi يعني وحويان نصارى وحي لهذا جنة النصارى وما إسكاله يهودنا وحي لهذا هاي جنة يهود وما إسكاله معها إيجا لفتودون وحسوه قليل معها إلى يهود لهذا هاي جنة وحي قلي دونا يهودي النصارى نصارى لهذا هاي جنة وحي قلي دونا نصاري يهود بقلي دونا معه وحسوه أقل لفتود وآيات دكتوس عطاء وحي نعلم دونك وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء marka iyagu wax soo ogola laakiin aayadu waxay ka wadaa wala isku duuduubay yahuudina waxay leedahay anagu ma jannada iskale nasaarana waxay leedahay anagu ma jannada iskale waxaad ku tiraahdaa taasi waa saad jeceshihiin waxaad jeceshahayna yaani adigu isuba haysideen waa saad diilooyinkiin iyo saad jeceshihiin way marqaati u keena xujo iyo burhaan cad keena hadaad run sheegaysaan ma ballan ilaahay baad haysataan marka tawreed bay ku taala ma injiil bay ku taala ما يعني القرآن كي كتالا أول مرخاتي عد كينا وحنا تشيغان إذا نين والبوحو شيغان كرا يعني لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموالا أنظر النبي صلى الله عليه وسلم هذه نين والبوحو شيغان الله إسكا سينا ربا حولها تدك قلقل سوا ودي لا كنا أنا إسكا كنا إسكا لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره ننتي وحشة مرخاتي كان اللي رزما قل هاتوا برهانكم حجدين كان إلا نقع حجة ما نقع عسى هذيك الواساد متعجين وإيساد يديلن يزالوا المعنى كده وقالوا حدا لن يدخل مقال على الجنة جنة قال مايو إلا من عدي كان هذا يهود هذا أو أمس النصارى هذا موي تلك مداسي أمانيهم يديلوين كوديوي وسيسعليين ونفطوا ضرطوي قل عاطر هذا هاتوا كان برهانكم حجدين كان إن كنتم أداد صادقين كوروا شيء هارونتا حجة بالغو قرداية عبيستا الشيء شكلية وعمان في عميس بلا والردي مرك بلا كعالة وركا شجية وحشي معه من أسلم الروحي هقامية روحي ديبة وجه كيس الروحي ديبة لله إلهي ديبة الله هقامية والحال بصاي والحال هو إساق محسن ويهمد عمل كيس ولا شيء فله عاصمنا بأجر كيسا عاصمنا عند ربه أكتي ولا خوف وحعصينا عليهم دشوا معهن ولا هم من أنهم يحزنون كمرك يهود بات شلا إسكاله هي النصارى شلا إسكاله انت تكب على وركه حقيقة مرة حقيقة شلا وحلوه قبل الله شرطي شرطي الكبادي وحوي أبدونك إنه وجهكيس إلهي أطيبه إخلاص ألا درتي وحي سوصليني ربي كلي إنه سبيبه عملك وصمين يا رؤوسا إلهي عيدنا اللولا تشنين وإخلاصتي من أسلم وجهه لله وجهكيس إلهي أطيبه وخالص يلا وحا لقوضا شركي إن أردنبا لقوضا وجهك وحا الله عبري شركه وشرف بدي واللغة العربية قال استعمالها شيئا قريب كم ذات شيء هذه قولت شيء إساقي أردن مركا إساقي وجهكيس الروحي إلهي أطيبه هاي وإخلاصك شرطي قال الله وحويان وهو محسن عمل كيس وناكشيو عمل كنا وحكو وناكسنان كرا مركو شرعه وتفصيحي والسنة النبي يتشدك الرسول صلى الله عليه وسلم وتفصيحي مركز عمل كو نغن كرا يعني وحويان عمل يعني صح نغن كرا الصواب نغن كرا والله ودي شرطية مركا عمل كالوا أقبلج والروح إلهي كالجين أسمي عمل كيس
nabigii iyo rasuulkiina raaco oo siduu qaabku u samaynayo waafajiya sidii rasuulku u sameeyey kaasaa jannada iskale. dadka jannadana waa kuwa abaalgud bay ilaah agtiisa ku leeyihin, cabsi iyo walbahaarna waa agtooda ma bahanin. marka idinku kuwa ma tihin maya ma tihin way haddaad tihin yahuud. maxaa yeelay Cusayr ibnullah iyo wiil ilaahay iyo ilaahay inaad addoommadiisa la caabudaan iyo kitaabkii ilaahay ood ka tagteen ood kaba baxdeen matanaad janno ku gelaysaan maya. ninkii sheegta oo war sheegtahay warkiisa intaan laga rumayn waa in dhaqankiisa la fiiriyo. dhaqankiisa unbaa miisaan oo ilaahay uu maalinta qiyaamada miisaanka saaraya way macna. balaa iska dhaafa hadalkaasi war jira meehe man aslama ruuxii dhiiba oo hogaamiye way wajho wajigiisa lilaahi ilaahay u hogaamiya oo ilaahay gooni u noqda asnaam iyo cid kaloo dhanna ka go'a rabbi keligii wax u samaynaya. walxaal buu saa yeelayaa huwa isagu muxsinun uu yahay mid wanaajinaya camalkiisa. camalkana wuxuu ku wanaajin karaa inuu rasuulka raaco salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo raacidda uu gooni yeelo. oo midda horena shardiga horena wuxuu meesha ka saarayaa istustus inaad camalka u samayso. ha lagu maqlo, ha lagaa sheego, dana adduunye ku raadso, magaca ku raadi, yaa waxaa meesha ka saaraysa balaa man aslama wajhahu lilah wa huwa muxsinunna waxay meesha ka saaraysaa inaad jeebkaaga kala timaado camalka oo tidhahda ilahay baa lagu dhawaanaya. ama wadaad kaa horreeyey intuu jeebkiisa kala yimid uu ku yidhi ilaahay baa loogu dhawaadayo waa kana qabso. haddii kitaabkii ilaahay iyo sunnadii la fiiriyeyna laga waayey waad ulu go'santahay hal bacaad lagu lisa way dadaalkaaga waxaad ka helaysana ma jirto. man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddu. ninkii camal la yimaada amarka nebiguna uusan dushiisa ahayn oo nebiga aan ka sugnayn waa lagu diidi. saa doontaba u dadal adugu saas macna. balaa man aslama ruuxii hogaamiye wajha wajigiisa lilahi ilahay u hogaamiye walxaal huwa isagu muxsinun uu yahay midkii sama falay oo camalkiisa hagaajiyey oo shareecada waafajiyey falahu kaa waxaa u sugnaaday ajru ajirkiisa u sugnaaday cinda rabbihi rabbigii agtii walaa khawfun wax cabsiyana calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana aynan ahaanin yaxzanuuna kuwa murga. waqaalat ilyahuudu yahuudi waxay tihi laysat maysan ahaanin annasaara nasaara maysan ahaanin calaa shayin shay dushii maynan ahaanin. waqaalat inasaara nasaarana waxay tihi laysat ilyahuudu yahuud maynan ahaanin calaa shayin shay dushii maynan ahaanin waxba ma haystaan. walxaal bay sidaa yidhahdeen labada kooxoodba yatluuna ay akrinayaan alkitaaba kitaabkii tawrada iyo anjiishi ay akrinayaan. tawreed iyo injiil ay akrinayaan. kadalika sidaasoo kale ayaa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii laa yaclamuuna aan waxba ogeyn mila qawlihim hadalkoodao kale dheh. fallahu alle ayaa yaxkumu xukumi baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada fii maa shay dhexdiibuu ku kala xukumi kaanuu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafsan. dawaa'ifta diimaha haysta ayaan waxba isu ogolayn. yahuudi waxay tidhi nasaara waxba ma haysato, nasaarana waxay tidhi yahuud baan waxba haysanin. kuwii aan waxba aqoonin oo waxba garanayninna hadalkoodoo kale ay dhaheenoo waxay dhaheen cid wax haysataba ma jirtoon annaga ahay. kuwaasina waa kuwe kadalika qaala aladiina laa yaclamuuna mila qawlihim waa carab mushrikiintii carbeed ila waxba ma haystaan iyagu waxba ma garanayaan. kuwanaaba dhaamaba yahuud iyo nasaaradanaaba dhaamo wuxuu dabageliisa haysta. laakiin kuwa dhagaxyaanta dul fadhiyay waxba garanaynin iyaguna hadalkoodii kale dhaheen annaga unbaa waxaysanay kuwan kale waxba ma hayaan. saasa iyaguna yidhahdeen. ayib yahuud iyo nasaaro markay qolada kule ku leedahay waxba ma haysataan kituubtii bay akrinayeen ogu. yahuudina tawreed bay akrinaysaa. tawraadna waxaa ku taalla injiil baa imaan doonta. injiilna waxaa ku taalla tawreed baa jirtay bal injiil waa tawreeda wax yar uu laga bedelay sooma. war kitaabkii baad akrinaysaan oo labada kitaab isu markhaati kacaye maxaad u leedihiin idinkuna wax ma haystaan idinkuna wax ma haystaan. soo xadgudub iyo maaha ictidaa maaha xadgudub wey macna. saas wey sheekh islaam ibnu taymiya caleyhi raxmatullah aayadan isagoo ka hadlayabaa wuxuu yidhi waxaa shabaha buuhi oo u eg yahuudi iyo nasaarada hadalkaa ay ogolaanshaanaanteena waxbay isu ogoleen. koox la yidhaahdo almutafaqiha iyo laba la yidhahdo almutasawifa. niman suufiye la yidhaahdo dhanka uun qalbiga iyo wixii qarsoon baan ka shaqaynaaye qalbiga sidii loo daahirin lahaa iyo waxyaaba qarqarsoon iyo xagga uu u foofay. iyo qolo mutafaqiha la yidhaahdo fiqhiga furuucdiisa iyo tafaasiil intay ku fogaadeen waswaas u gaadsiiyey. markaasaa waxay ku leeyihiin waxay gaadheen xubinta hadday dhaqaanba inay ka waswaasaan maadan dhaqin. allahu akbar markay salaada ku geli rabaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar umaadana ku hayna waswaas baa heerkaa gaadhsiiyey. mutafaqihaduna marka fiqigii baa qaar intuu la fogaaday buu meel la tegey
mutasawifada qaar ka midana qaar buu la fogaado yani suufinimadii meel la tagtay markaasaa mutasawifadu waxay leedahay kuwan mutafiqahada ee hadalkan meeshan dul farfadhiya fiqi baan ka warramayna iyo dahaaro qaaday jid la dhaqa iyo nadaafad ka hadlayahay waxba ma haystaan diin ma hayaan mutafaqiyadiina waxay yidhahdeen kuwan sooma jeedaan meelahan tagtaagana ruubaanta ayaguna waxba ma haystaan war ma ahee qoladana wax khayraa ku jira waxay samaynayaan qoladana wax khayraa ku shareecada waafaqsan baa ku jira kuwan khayrkoodii ha la soo qaado kuwana khayrkoodii soo qaado labada sharkoodiina ka tag soo saas ma laakiin haddaad tidhahda aniga unbaa jira wixii aniga iga soo hadlayna waa baatil khayrkii qolada kale ku dhex jirayna aad hilfaha u qaadahay waa dhaqankii yahuud iyo nasaaro wey macana ilaahay baa maalinta qiyaamada kale xukumi doona waxa ay isku khilaafseen isku hayaan wa qaalad waxay tihi alyahuudu yahuudi waxay tihi laysat innasaara nasaari maya nasaara maysan ahaanin calaa shayin shay dushii maynan ahanin wax ay haystaan ma jirto ay calaa shayin min addiin waay wax diin ay haystaan ma jirto wa qaalat innasaara nasaarana waxay tihi laysat maynan ahaanin alyahuudu yahuud maynan ahaanin calaa shayin shay dushii maynan ahanin yahuudi waxba ma haysato والحال بيسا يلاهدين هم إيهو يترون أي أخرين الكتاب كتابتي أي أخرين كتابتي هو توراة إنجيل بأخرين نصارنا توراة يعني يهودنا توراة بأخرين نساء نصارنا إنجيل بأخرين وأنا لما كتابه اسمه كاتكاي كذلك الساس حال لم يكاهر أوكله أي قال وحيدا الذين قوى لا يعلمون أن وحباء غين وعربت يعني عربت مشركين توديا وحيدا مثل قولهم قوى هذا القول قليله وتانا أمبا تحسنه وحكلا وحيستمر جريده فالله ألا أيا يحكم حكمني بينهم لحظة يوم القيامة ما نمت قيامنا فيما شيء دحدي بكوكلا حكم كانوا أي حيان فيه دحدي سيختلفون كويس بخلاص إلهي ما إذن كلا ساري دونا نوال بقومني سي قورة اللوغري كل حزب بما لديهم فرحون صوما نوال بإساقا إسلاق من لكن مال أن إسلاق منان بعضهم بيس وننكي قرلنا قرتي سلسين دون ننكي قردرنا إساقنا قردرين سلوه حكم دونه هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله